Facebook maalin walba waa arkaysaa, meel kastana waa ku arkaysaa, mobilkaaga, smartphone-kaaga, computer-kaaga, noocyada kala duwan ee qalabka elektarooniga ah oo ku arkaysaa. Kuwaad adigu haysato ama kuwa haystaan ehladaada iyo asxaabtaada. Waa shabakada ugu ballaaran ee ku kulma bulshooyinka caalamka. In ka badan 1.6 milyan oo qof ayaa ku leh xisaaban. Maanta waxay soo bandhigay xaqiiqo ku saabsan Facebook. Tusoo dhawaad. boqolkiiba ka toban dumarka caalamka waxay sameeyaan cusboonaysiin xisaabaadka ay ku leeyihiin Facebook ugu yaraan 1 jeer bishiiba, ragguna kaba badna 6 jeer. Fanaanada caanka Shakira waa taageeraha ugu caansan Facebook. Taageerayaasheedu waxay gaarayaan 100 milyan oo qof. Qiyaastii 30 milyan oo qof oo dhintay ilaa hadda xisaabaadkooda ka furan Facebook. Mark Zuckerberg waa qofka kaliya aan saaxiib kala noqon karin Facebook. Qoraal kasta oo ku qorto xitaa haddii aan la taabin waxa loo diraa sawirka ugu weyn ee Facebook. 300 oo milyan oo sawir ayaa maalin kasta la dhigaa Facebook. xilliyada inta badan la isticmaalo inta u dhaxaysa 1 ilaa 3 doolarnimo. Mark Zuckerberg wuxuu 1 milyan ugu deeqay hay'adaha samafalka sanadii 2013, taasoo ka dhigaysa deeq-bixiyaha ugu weyn Mareykanka. In ka badan 10,000 oo qof ayaa lagu dilay dunida oo dhan sababo ah muran ka bilaabmay Facebook oo ku jiraan kiisas dad laga tirtiray. Facebook wuxuu raadiyaa dhammaan goobaha aad booqatid maalin walba si faahfaahsan iyo qaab elektaroonig ah. Xitaa haddii aad ka baxdo boggaan aad iska tirtirto dhammaan macluumaadka ku saabsan computer-kaaga, Facebook dabagalkaas wuu kugu hayaa. maxaa buluug ka dhigay shabakada caanka ee Facebook? Sababtoo ah milkiilaha Facebook wuxuu xasaasiyad ku leeyahay midabada casaanka iyo huruudda, taasoo noo doortay midabka buluugga ah. Shiinaha ayaa xayiray Facebook, Twitter iyo New York Times laga soo bilaabo 2009 iyadoo aan muwaadiniinta geli karin ilaa hadda. boqolkiiba 30 kiisaska furiinka ee maxkamadaynta Mareykanka tan iyo 2011 ayaa ka mid ah sababaha ninka ay naagtu isticmaalaan Facebook. Qiyaastii 30% ka mid ah xaaladaha guurka waxay ku dhacdaa dhowr saacadood isbarasho Facebook kadib ah. boqolkiiba 66 dhalinyaro ayaa looga hanjabaa ama lagu dhibaa Facebook maalin kasta. Maanta dad adeeg soo bandhigay. Fadlan hadduu fiidiyowga cajabiyo like saar, kalkan subscribe ku qabo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.